هذا ولا سود ويسان دمانتي بسم الله الرحمن الرحيم. مركب كوباد وانا السلام يا سلامة السلام كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب حكتا وحان جعل هاي sidoo kale salaan aad u qiimo badan oo qadarin iyo xubin wadataan idin ka soo gudbiyo gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya Admiral Maxamed Cumar Ismaan iyo guddiga fulinta jabhadda wadaniga runtii farxad weyn bay tahay inaan halkan maanta munaasabadan aan kala qayb qaato lagu maamuusayo sanad guuradii 32 ee ka soo wareegtay asaaska jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya ومركي هو رئيسان دونك دين عيسان ماضو يوروب يو إيشيا يروقا وقالوا مركي هو رئيس مركو معني فرصة بيتها يفرحد وين بيتها أنا عاوة هالك أنا ذيك لا قاعد مناسبات رنتي وحوي أهلمتن هذا ينوشونه يو مناسبات الحس كذو وحوي مناسبات سنة دول بدعلا مناها waxyaabaha loo sameeyo munaasabadan ma aha xaflad jacayl iyo munaasabad jacayl iyo ma aha aan waa astaanta halganka ka socdo ogaadaya weeye lagu xoreynayo dalkaas astaantaas ay xambaarsan tahay waana mid tacallada adduunka oo dhan ka dhacda xilligan oo kale Australia oo magaranaysa aad ogtiin inta inoo jirto halkan Europe Asia Africa yani meel walba ka dhacda sababta ugu muhiimsan ee loo sameeyo waxa weeye in lagu tuso gumaysiga in aan u taaganahay qadiyadaas ah in dalkaas la xoreeyo halganka ogaadaya waxa laga yaabaa dadka qaar inay isaga qaataan inuu yahay halgan ku kooban dadka Soomaaliyeed ogaadaya degan laakiin waa halgan Soomaaliyeed weeye waa qadiyad Soomaaliyeed weeye mana hamid soo bilaabatay 48kii waa mid soo bilaabatay qarnigii 16aad xilligii uu hogaaminayay halganka Allah u naxariistay Imaam Ahmed Ibrahim Ahmed Gurey xilliga laga soo bilaabo ilaa hadda halgan istaba socda oo qoriisu dhiiba oo qoloba ay qolo u dhiibayso ahaa ujeedada ugu weyn ee halgankaas uu socdana wuxuu ahaa in uu ka hortago oo uu caabiyo isbalaarsiga ama dhulbalaarsiga ay sameeyeen dadka loo yaqaan Abasiiniyaanka yani Ethiopia no ma naqaano oo Ethiopia baan iska dhiraana laakiin Ethiopia runtii dhibaatada wada dulmiga ka wada gobolka Geeska Afrika waxa uu Abasiiniya dadka la yiraahdo weey dadkaas weeyaan dadka ay magaranaysa aynu hadiyo gooreyno aynu la halgamaynay ee aynu ka soo horjeednay halgamada aan wadayna laga soo bilaabo Ahmed Gurey taraawishti la soo maro Nasrullah geeshka 64kii WSLF tan imanka socota mid walba Ethiopia waan kaga adkaanaynay haddaan Soomaali nahay waan kaga adkaanaynay laakiin mar walba markaan ka adkaano wada kale iyo xulufooyin kale oo baa u imanayo oo soo hiilinaya marka ugu dambeysana waxa weyn waan kaga adkaanayna waan hubnaa sababtoo markaad xaq ku taagan tahay adigu ee xaqaaga aad raadsanaysaa aad dabada haysato waad guuleysanaysaa sadarteed maxaan ku raadhay halgankan waa halgan Soomaaliyeed weey waana mid waajib ka saaran qof kasta oo Soomaali u dhashay meeshuu doonaa ku noolaado marka mid la kala xigana ma aha waajib bana ka saaran qof kasta oo Soomaali ah taamarka ka gudbo macna hadalkeenu wuxuu badan doonaa يعني هذا اللي يقول رأي مايو وحاول رنتي هذه arrimaha hadda jira iyo xaaladda hadda Ethiopia ay ku sugan tahay tahay doctorka ay noo faahfaahiyay hadii kale haday wacyi gelin iyo magarad wax soo sheeg tahayna dad badan baa maaragtay hadlay oo qadiyada inoo wax inooga taabtay sadarteed isku sii dheerayn mayno laakiin waxaan emphasize karayna xooga saari doono wuxuu noqonayaa xaaladda maanta ka taagan gobolka Geeska Afrika iyo waxa inaga la gudboon maaragtay iyo qaabkan ugu diyaar garoobayno isbedelka la filayo ama ifafaalaha la filayo inay ka dhacaan gobolka Geeska Afrika aan taasoo yaan macni uu hadalku badnaan doona
لكن si aan marxaladda u fahanno oo duruufta maanta aan ku jirno iyo waxa ka jira gobolka Geeska Afrika aan u fahanno waxa laga maarmaan inaan dib u yar milicsano taariikhda marxalado noocan oo kale ayna soo maray marxaladahaas oo kale la yar milicsano waxay taasi inoo sahlaysaa marka inaan exactly aan garanno marka waxa aynu hadda ku jirno iyo waxayna sugayeen iman doona marxaladaas marka milicsiga ku sii dheeraan maayo laakiin waxa ka soo bilaabaya maxaan ku dhac carabta waxay ku maamaahan taariikh yuciid nafsu oo macnihiisu yahay taariikhdu iyada ay soo celisa macna taariikhdu iyada ay soo celisa waxay leeyihiin ma aha maalintii ka tagtay inay iyadu sideeda soo noqonayso laakiin waxa imanaysa maalin wadata duruuf la mid ah duruuftii maalintii hore tagtay qofkuna markuu wixii tagay uu og yahay iyo saadaalin karaa waxa imanaya saadagta waxaan dib u milicsanayaa oo dib ugu noqonayaa markii Ethiopia dirgiga markuu dhacay ay nimanka TPLF-tu ay qabsadeen dalka waxa jira process siyaasi ah oo xilliga bilowday oo ma garanaysaa qowmiyada isu yimid walow ayna isku awood ahayn markaas oo awood ay TPLF-una haysatay laakiin haddana wax lagu tilmaamay qowmiyada isu yimid charter ay isla samaysteen baa jiray oo 2 sano ah charterkaas jabhadda waddanka xorriyadda ogaaday markii xilligaas ay fakirtay marxaladii lagu jiray iyo wixii duruufihii ku meermeersanaa halka markii ay qiimaysay waxay go'aansatay inay ka qayb gasho xilligaas processka siyaasiga inay ka qayb gashay go'aansatay processka siyaasiga sidii ku bilowday jabhaddu sidii uga qayb qaadatay go'aan adag buu ahaa runtii laakiin markii ugu dambeysay waa la qaatay waa laga qayb qaatay charterkaasi wuxuu dhigay markii 2 sano ay dhamaato in qowmiyadu waliba marka ay xaq u leedahay in ay codsato in afti laga qaado hadii ay iyadu doonto haddii ay doonto inay ka sii mid ahaato waxa ay ugu yeedheen Etoobiyada cusubna inay sidaas uga sii mid ahaato innaga mar kasta waxaa meel nooga go'nay in 2 sano aan maaragtay wax samaysano wax macquul ah oo aan ku geedigeli karayno inaan samaysano dabadeed 2 sano markay dhamaadaan inaan codsano in dadkii afti laga qaado sidii u baanan samaynay laakiin TPLF way ogaayeen hadafka iyo ujeedada oo NLF way ogaayeen sidaa darteed iyaga laftoodu waxay sameeyeen falcelin bay arrintaa ka sameeyeen qorshayna u sii diyaariyeen waxayna ku dadaaleen inay fashiliyaan barnaamijkii siyaasiga oo NLF ay waday NLF waxay ka qayb gashay doorashadii ugu horeysay ugu dambeysay si xor ah dalka looga qabto boqolkiiba in ka badan 68 bayna ku guuleysatay dawlad bayna soo dhistay laakiin TPLF waxay go'aansatay inay burburiso dawladdaas sababta dawladdaas haday hana qaado oo ay tis qaado oo ma garanaysaa xilligii charterka saa looga gudbo waxay hadafka ay leeyihiin inay gaarayaan bay ogaayeen sidaa darteed way ka hortageen dagaalayna ku qaadeen taas markaa waxaa dhacday markaa markii charterkii uu dhamaaday xilligii charterka uu dhamaaday oo NLF marka barnaamijkeedu wuxuu ahaa inay afti dadkii laga qaado arrintaas waxaa diiday TPLF baa diiday markii laga ay waayay oo NLF waxay go'aansatay markaas inay bareeraheeda cadaysato 28 January 1994 bay soo saartay qaraar rasmi ah oo ay ku codsanayso in afti laga qaado magaraysa dadweynaha Soomaaliya ogaadeen ay mustaqbalkooda siyaasiga ku go'aaminayaan arrintaas Ethiopia waxay maaragtay ay jawaab uga dhigtay in ay guud ahaanba weerar ku qaado oo ay isku dayday inay burburiso jabhadda waddanka xorriyadda ogaaday iyo xafiisyadeedii iyo nidaamkeedii iyo dawladdeedii iyo wixii ay hogaaminayso oo dhan inay burburiso markii jabhadda go'aanka gaadhay baarlamaankii gobolkuna isna go'aankaas mid la mid u gaadhay oo aqlabiyad waliba saaxiiqa uu ku gaadhay waxay markaa sameeyeen TPLF waxay go'aansadeen marka inay weerar ku qaadaan maadaama mar haddii aftiba lagu dhawaaqay oo baarlamaankii iyo dawladdii iyo wixii iyo ururkii hogaaminaya halganka wixiiba ay go'aan ku gaadheen in afti laga qaado arrintu waa caddahay saadee dagaal bay ku qaadeen 17 Abriil 94 bay xarumihii jabhadda oo dhan weerareen madax badan oo jabhaddu leedahay bay laayeen ma garanaysaa xafiisyadii oo dhan bay xidheen
waxay bilaabeen inay ugaarsadaan waxa la yiraahdo wixii oo la sheeganaya ama taageero ha noqdo ama xubin ama mas'uuliyiin ha noqdeen waxaa markaa golihii dhexe ee jihada wadani xorriyadda ogaaday shir degdeg uu marka qabtay oo xaruntiisa ku qabtay Galgoan shirkii degdeg ahaa waxaa arrintii baa la darsay waxa la waakan barnaamijka aynu labada sano maartay soo sugaynay iyo qorshihii aynu wadnay sidana Ethiopia kaga jawaabtay dagaalkan way lagu qaaday maxaa talaa go'aankii wuxuu noqday markii la istifaaco dagaalka maanta socda maalinkaas uu bilowday go'aankaas golaha dhexena wuxuu ahaa 20 bishii Abriil sanad 1994 shacabka reer Ogaadeen inay istifaacaan inay xaq u leeyihiin golaha dhexe maalinkaas yuu go'aamiyay taasi markay dhacday waxay samaysay markaa TPLF markaa dagaalkoodii iska sii wadeen dagaalka halka bilowday 8 maalmood kadib 28 Abriil 94 wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Itoobiya oo la dhihi jiray Saya Abraha buu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa wuxuu shirka jaraa'id ku sheegay wuxuu yiri waan soo afjarnay halgankii iyo hawlihii ay ONLF waday magaranaysaa soo afjarnay dadkii waan ka tirtirnay wixii hadda ka dambeeyana magaranaysaa dadka Soomaaliyeed iyo Itoobiya ah ay ka qayb galayaan barnaamijka Itoobiya halkaas baa marka dagaalkii ka bilowday halgankii markuu wuxuu galay marxalad cusub marxalad wuxuu galay dagaalkii macni marxaladii siyaasiga dagaalkii siyaasiga in laga baxo lagu guul daraystay la gala marka dagaal siyaasi ah dagaalka siyaasiga marka wuxuu dagaal lagu qasbay ma ahayn mid aan dooranay ma ahayn mid tala xubin loo geysay ma ahayn mid aan garan weynay in aan garanaysaa بروسيس سياسي أي حل جال عصب دولة العصب يتمد إن الكعكة قيب قال من أن يعني قرن ويننا ما هي لكن وحوها قف محنكو رضاي هلي هدي مال وجاكو أنت والبساس ما أبى شتى يعني إثيوبيا مال ما وجاكو عنه وحوجاكو عنه إن مكرنا سا أي وجادية إثيوبيا كسيم دهاتو دجال كمركا وساقو بلاد مركا وحان مركا رواينا waxyaab markaan eegno halganka marka xilliga bilowday dagaalka hubeysan xilliga Itoobiya bilowday macni guulaan ka gaadhnay guulo waaweyn baan ka gaadhnay guulahaas markaan ka gaadhnay baan dhinacyo yaryar inaan ka tilmaamo oo dhowr factors inaan ka tilmaamo dhinaca ciidanka مثلا macni marka go'aanka uu gaadhay golaha dhexe 28 Abriil 94 go'aanka gaadhay in la istifaaco jabhad ciidan meena haysanin ciidan ku filan ma ayna haysanin hub ku filan ma ayna haysanin dhaqaale ku filan ma ayna haysanin laakiin iyadoo ku tashanaysa xaqnimada qadiyada ay hayso iyo waajibka saaran bay go'aanka qaadatay muddo kooban gudaheed waxay ku guuleysatay inay dhisto ciidan bimacna kalima ciidan oo macnaha ciidan tababarkiisa iyo hubkiisa iyo hawlgalkiisa iyo barnaamijyada uu ku hawlgalay wada dhanyihiin waana ciidanka keenay in Ethiopia ay ku fashilanto guud ahaan qorshayaasha ay ka rabtay Ogaadeen u babac dhigay ciidamada tirada badan ay macni keentay Ogaadeen ay keentay waa dhinac waa guul weeye uu soo dheermay halganku weeyaan dhinaca bulshada waxa way bulshada Ogaadeen Soomaalida Ogaadeen مع الإسبدل fundamental أبا كودعي أنتي أي تروح هجامين يسهل جنكا مع الإسبدل كاسو حوي كو مع الوحاء أبورمي identity ضد صوماليات أو لجوميستو إثيوبيا أي جوميستو وحق له إن أي منطقة لما نحرر مدودا مع identity كاسا أبورمي ما تشيلين identity كاسي مركي هوري هل جمدي هوري سود دعية أنتو ضبطن identity كاسي ما تشيلين ما سمعنا سببتها هل جنك أنت بدن وحاجة عندك وهي قرار كيس سياسي أو حاجة عندك وهي سي دولة الصومالية عندك وهي سي لكن حل جن هذا الجو حي هو جامين يسي حوالي يمكن كده كلا تكبر هاي دولة الصومالية ماشي كبر حضي لين عدة حتى هو جامين يسي هل جنك وطا
قرار كسياسي نبقى عليه وحاول جهد ودري حرية وقادين تحسنا وحي كنت مركز إنه أمرمو identity كجوان كي صومالي ما أهم عنه إنه كوجو أي هاي إنه سن علاقات لهين أما وسن مقارنة ساهين قضية صومالي ليس ناهين معها لكن تذكرش هذا المركب هو رئيسه وين يجوا فهمان إن الجميستو أين حقوا ليهن إن أي مارت كتر على من جميسية كاسب أبورمي وحكروا أبورمي وعي سياسي أو جودها من برشة جاري مال أي شوكة بجودة يدبت كان هذا عماش الأوفر لنعاو يا كم ده وحكم ده مقارنة سام مال مربع على كاس أسترنت هو هالجنك كل المانيا يا كم ده وحكم ده عروض يركع يعني أفكار سومالي كرنين أفكار كرنين كوكبية يبقى كمدا ومرها هلجن كان كوتشلوية إن عسياسة ده اللي بقولوا بهالمكسور دامي وحاجرته إثيوبيا بريه هروح أي نجيب بوليسين جرتي أي سومالي نجيب بوليسين جرتي وحويان سومالي قفك سومالي هو يقانون وتقالمو لكن دينا السياسة عيد كو هيستي محفلة أدونك مجرين ويوبنا محفلة أدونك وحي يدو كو آخر بقادين جرين دولة رجال بيتكو هلا جرين صاحب الله هذا لكن هذانا مجرين عد كود عد كسوهر جيدا مجرين دولة الصومال وهلكن كحنقول لك عنده وهيسينا ظروفته ومعينا سامحين إن أي صير ربانو الله صوتوا الدولة يدوبا دنيه الاستراتيجية أيو حديدنا للدبلوماسية على يا حريق سيدا درت سيدا أي أوهاد ذكران شعب كهلجن كيسكله ما إن أوهاد ذكرين سيدا إثيوبيا وحي هيستي ساحة بنان بهيستي وصير ربطو أي بناوراد وسمين يسوع وضدك وحي ربطي يدو يوشي يسوع أريدات ويسوع أفجرانتي meel walbo ay istaagto Ethiopia waxa ugu horeeya qof qadiyada u dhashay oo afkii la garanaya oo ka ilbaxsan oo ka aqoon yahansan oo ka wadanisan meel walba muwaadin uu tagay qadiyada istabada haysta kaas waa maksabka siyaasiga uu gaaray halkan macnaheedu wuxuu gaaray hadda siyaasiga dhinaca siyaasadda uu gaaray cid kastoo isku dayda إن أي analyze كسميسا أما وحكشة تجربة كجيس كأفريقيا والنقطة هل كوجادية من دبعة دوجادية نقطة فاكتور ككوبات والنقطة anyone قف أجنبي حتى هذا هذول سكودا إنه analyze كسمي جبل كاس دبعة كيشة تيجي مستقبل كيسة سياسي جاي واحد لقى دون أيو يعني دبعة دوجادية وقطب ككوبات وهي وهو جاري هير إثيوبيا أي wadamada ka jira geeska Afrika ama maamulada ka jira wadamo yaana dhihin maamulada ka jira Soomaaliya qaybaheeda kala duwan iyo dawladaha ka jira gobolka geeska Afrika kood iyo Ethiopia intuba ay isu wada kaashadaan inay la dagaalamaan halgankaas aan waa awood maxaan ku dhahdaa uu gaaray iyo maksab siyaasi uu gaaray kol hadii magaraysa cadawgaagi uu wartolaa ila qabtay uu gaaray waxa maxaan ku dhahdaa waa dhaawac uu gaarsiisay weeyaan يعني هي بقول قارن محفلة أدونك لقى قطوله وبيشي جولاي يعني يونايتد نيشن كان لقى قطودي ولقوا مرتقاضي وفتي رسمي وكسر الجبهة ودني حرية وادية ورفض ورفض أوضاع حقوق آذانها غير وادية وحي كقيب كلام مكان يسجلنا على أسامبلي الشركة لقوا قبل جولاي بيكقيب ولا سوء فشار وقيب كلام هو مكسب سياسي وهربان وهلجن كسمية ويا دينا عكلا لقت الماء كره هربان وهلجن كسمية حوي مع الحوج يعود إثيوبيا كرينيس أي هلجن كرينيس إثيوبيا وحي عيدا الله حي بدن كل حيسوق جيس هالكاس بديه جيسي وحي كرا أبورت ميليشيات إيدا كبضا وحي كاشر تيدات سوماليا وحي ويرتay saaxiibadeedii iyo cid kasta si ay ula dagaalanto ku dhadaan halka ka socdo si ay ula dagaalanto taasi waxay ku tusaysaa marka halganku awood u leeyahay bay ku tusaysaa iyadoo waxa soo dhan hadana isu keentay way ku guuldareysatay inay wax ka qabato
ama ay joojiso way ku guuldareysatay marka waa qaybo ka mid ah ma garanaysaa guulaha uu halgan ku soo dheermay iyo ka mid yihiin faktaradaasi haddii aan taa marka intaa kaga gudubno maxay tahay xaaladaha ka jira gobolka Geeska Afrika aan hadda waqtigan aan joogno gobolka Geeska Afrika maxaa ka jira aan waxaan jeclahay markii aan analyze yar ku sameeyo xaaladaha guud ee ka jira gobolka Geeska Afrika marka analyze-kaas ma sii dheeraan saddex dhinac baan saddex jaanib baan analyze kaga sameeynaa marka xaaladda halganka ma garanaysaa dhinacan kala eegayna xaaladda gumaysiga iyo wadciga guud ee ka jira gobolka Geeska Afrika xaaladda halganka markaan eegno yani halganka maanta ay jooxa hogaaminayso iyo dagaal ka socda ama garanaysaa ama siyaasi ha noqdo ama dagaal hubaysan ha noqdee waa xawi waa halgan gaamuray aan halgan gaamuray markaa la waxa waa halgan isu dheelitiran oo ka dhamaystiran dhinaca hogaaminta dhinaca maaragtay hay'adihii hogaamin lahaa shuruucdii lagu maamuli lahaa iyo barnaamijyadii siyaasiga iyo qorshayaashii la adeegsan lahaa intuu way u dhan yihiin saadad waa halgan xukumo adag ku taagan weeye oo ay adag tahay in la leeleeyo adag tahay laakiin haddana saas ay tahay يعني challenges baa jira dhibaatooyin baa jira ma garanaysaa caqabad ku noqon karaya halganka socda dhibaatooyin caqabad ku noqon karaya jira dhibaatooyinkaasi qaarkood waxay ka imanayaan gudaha Uganda ka imanayaan qaarna waxay ka imanayaan banaanka Uganda ka imanayaan gudaha Uganda iyo kale maleeshiyad la abuuray baa jira oo Soomaali ah oo ma garanaysaa kula dagaalamaya iyagoo shaarkii gumaysiga xiran oo baagadi gumaysiga qaadanaya oo numberkii ciidamadii gumaysiga wada kula dagaalamaya haddana jaamac iyo maxamed iyo faarax la dhaho oo kula dagaalamaya waa challenge jira oo loo baahan yahay in laga fikiro qaabkii looga gudbi lahaa waxaa jira maamulada Soomaaliyeed iyo madax Soomaaliyeed oo Itoobiya ay adeegsanayso ay halganka u adeegsanayso oo ay kula dagaalamayso si laftiisu waa dhibaato jirta weeye waxyaabahaas oo dhanna يعني وعقبضه أي أكتها جبهة أي نقول ترى قشن تهاي عقبضه والبناء يوديارين السوق قرشياش اللي جاي جود بالله قرشياش أصلا وقرشيال فلو والله نجا وين الفلان هذا هو سدين الفل اللي هاي هل كنت المون السوق يعني مركو قرشيال للدشيو للفليو حل يكوها بون يمشي كوها بون للفليو تاسو حالة هل كوي حالة جميسة كمان جميسة ولا كسوقية يعني جميسة ولا كسوقية حالة أعتقد كمان كسوقية حالة ولي يالله أنصار مرين بإثيوبيا كسوقان تاعي دكتور كعادي لوقف فاهي حالة يعني أن ولي أنصار مرين أيمان كسوقان تاعي إثيوبيا ولي يالله هرتنا بالقليل ما بعين نقارن با أمريكا بالقليل ما نقارن صوتها مركورة حرام لو قدس وحرام لو قدسينا دي حلال ما نقريان وما دقيان marka dadkii qasabka ay ku qabsatay waligood way dagaalamayeen wayna ka soo horjeedeen laakiin markii hore dagaalka socday wuxuu ahaa dagaal inta badan hubeysan oo ciidan loo dirayo ciidan meelaha ka soo xasuuqday iyo xaalado maartay soo urursay ka horgeynaysa kuwa madaxduna iska fadhiyeen magaalada marka dagaalkaas foolkii military buu ahaa laakiin wixii hadda waa la isla soo dhaafay dagaalkii militariga ahaa ma socda hadda waxaa socda dagaal shacbi ah dad ma garanaysaa sheekada carabtu ay leeyihiin bisuduur caariya macnii dad aan hub wadanin oo gacmaha saa iska leh baa ku soo dareeray magaalooyin dhan baa soo dhaqaaqay waa arkayseen sawirka 2 milyan oo qof hal mar soo dhaqaaqday askari wuxuu ka qaban karaa waxba kama qaban karayo wuxuu ka qaban karayo malaha waxaa taa wehelisa iyadoo